deerkay baa idinka soo haray oo dhahdeen maxaan ku dhiilaa nin bay obsessed ku tahay in obsessed haddaan ku noqdana waa nin dhiigayga he's my fucking blood waa ina adeerkay waa ilmahayga aabahood waa wiil walaalkaya waa ina adeerkay waa cousinkayga mid baa jeedaaye laba jeedaaye saddex baa jeedaaye ragga Soomaaliyeed afar marka loo banaayay 8 hadduu guursado xalaal caleeg bay ku tahay waa ku bannaan tahay inuu guursado haddii aanu kala tagnay waxa dhahdeen hadduu ka tago hadduu iga tagana waa ina adeerkay hadduu iga tago oo calaf uu dhamaado waa ilmahayga aabahood waa gabadhayda aabaheed madaxaasu ii saaran yahay aniga ma ihi naagaha intay media soo fariistaan gugashooda ama ninkooda falanqeeya ay midda ina adeerkay baa idinka soo haray oo dhahdeen maxaan ku dhiilaa nin bay obsessed ku tahay iyo gabaran WhatsApp codkeeda ka keenay ma jirto haba yaraatee codkaasna live-kayga waan soo dejin doonaa page-kaygaana soo saari doonaa insha Allah anoo live ku jira bay gabar waxay ii soo qortay comments oo ah tacsi family-geena gashay oo wiilka i qaba ah bay tir maxaad ugu soo tacsiyadeen weeyday waxaan ku yiri waxaad ka hadlaysid walaal waa wax privacy ah oo maanta inta soo fariisto inaad Soomaaliya qofkaas naga dhintay noogu soo duceeya waxa nooga qiimo badan oo nooga sharaf badan oo adduunka aqrab lagu liibaanaya inaan qofkeena cimro u baxsano ama cimro loo niyeysto oo sadaqaan u baxsanoon anagu u dukano anagu u duceysano anaga Soomaali duceeya habar midna ugama baahnayn kadib waxay igu soo qortay gabadhu ninkaaga kuma daneeyo ninkaaga saano ninkaaga ex-kaygu ahaa markaas aan ku yiri waa hadalkaad soo dhiganaysaane why bad aniga markay igu kor ooyeysaa hadalka meeshu ku yimid weeyaan naagan anigu cod ay leedahay aan keenay ama cod islaameed aan soo bandhigay xaasha wujuud Soomaaliduna hore waxay ugu maahmaahdaa ceebtu waa laba qof midna waa mid ceebta leh midna waa ceeb ninna waa nin ceeb leh ninna waa nin ceebta lagu tiro waa qodobkaas baan horto maaragtay halkaas uga baxaya sababtoo waxa dhahdeen gabdhaha Soomaaliyeed ee ceebeynaysa xaasha wujuud waxaas waa ka sharaf weynahay weligay qof bini aadan cod u leeyahay inaan duubay uma malaynayni jirto ma fahanteen midda labaad waxa dhahdeen ilmaheedii bay tuurtay Afrikay geysay ilmahayga anaa dhalay anaa ka masuula ilaahay ka sokoo caawa haddaan indhaha isku qabto nasiibkooday qabaan inta aan neefsanayo anaa ka masuula haddaan rabo Afrikaan geynaya haddaan rabo South Korean geynaya haddaan rabo Malaysia ka tuuraya haddaan rabo Ruushkan geynaya anaa xuriyadeeda leh anaa masuuliyadeeda leh anaa dhalay anaa hooya anaa u aaba anaa xabadku intaas ii leeyahay ilmahayga ceer kuma koraane anaa u shaqeysto $1 mali maqlayaa kola isoo galiyaan liisoo wicin waa ii jeedaan si wanaagsan waa lagu maqlayaa walaal si wanaagsan iska qabo kol ba isoo galiyaan liisoo wicin ilmahayga anaa korsada ama South Korean geynaya ama Russian ka tuuraya ama African geynaya ama Hindi hay soo wicin please ma fahanteen anaa ka masuula amida koowaad midda labaad waxa dhahdeen hooyadeed ba adduunka u nacabto hooyadeed ma biisho sawirka hooyaday haddaan inta idin soo saaro naagaha ay caynayay hooyaday ba isku daa fahanteen I'm not saying waa yarahay anigu empathy idinka Soomaali kama raadinayo way caay kartaan shaqo kuma lihi okay inaad caydaan oo qolayga soo furto daamiin qof jiraan hadaan jirin maba lay caayeen because hadii dad la caynayo idinka la idin ciilaha ama gabdhaha media jooga la ciilaha ama gabdhaha Soomaaliyeed kala la ciin laha guriyooda jooga ama kuwa media ila jooga wax caayay wax soo xasuusta aanan jirin baa la ciin laha inaad caydaan waa ku maasantiina waxaad ileedihiin hodanay waa jirtaa waa ku jeedna waxa sameeynaysi baad u jeedna waanu ku aragnaa live-ka mar hore rabina soo qabsay laakiin dukaankan jooga parking-kan jooga waa shaqaysanaya midaas labaadna midaas ay idinka leeyahay hooyaday waa naag 20 jira oo laandheera oo xiisa oo sankaas biyaha ka cabayso magaaladay ku dhalatay joogta guri qasriya degan oo shaqaysato u raaci waliba oo shaqaysato adigu maxay heeday leeyahay WhatsApp bay ka soo duubtay baa naloo keenay waanu maxay heeday qaadaa dhigaynay
adiga iyo nool baa noo yimiday bal hadda eeg maya eeg annagu su-aashaanu hadda ku weydiinaynaa waxa weeyaan gabadhan maxayday codkan imika aanu dhegaysanay ma wasaabaa maxayday uu ka dhacay codkan maxayday sawda qurux yaala sideebuu ku dhacay intaasaan dooninaa nooga jawaabfaar ku dhiglaan kasoo maqalnay walaalo codkan imika aad leeday odayga odayga ma gabadh dumar baa haye maxaa soo galay odayga oday ma ilaaliye quruxdaydaas iyo shacnigaas iyo noloshaas odayga buu qurux badan yahay saddexdaas baan ku indha kuushanayaan ilaaliye saddexdaas ilaaliye maalkayga iga baahan ilaalinay nin nooloosan ku neeflaa walaal ma ilaalinay albaabkaas hadduu ka baxana albaabkeeda kalaan ka baxaya naag laandheero sasu qurux badan baan inaad arkay asaaba ducaa igu helay anna quruxdiisaan ku raacay idhegaysiya laandheerinimadiisa gobanimo maasha allah haye idhegayso waay nin baad tagaya iyo nin baad tagay walaal gabdhaha Soomaaliyeed they need to learn ninku haduu tago ninku sidoo shalay u yimid buu tagayaa walaal qabanay ma maqlaysaan aade suuq digta hadal baa socday dhammaan wadiga haynaade naga sawirka de naga daa dadka naga sawirka ay naga daa naya waxay sheegaa naya waxay ka sawirtan naya waxay sheegaa suuq xilkaan ka qaadaya program ba halkan la keenay cod adigu maxay